yaa holacaas aad u jeedaan waa challenge gabadh walaasheena oo youtuber baa waxaan ku leeyahay igu soo xujaysatay yaa xujadeedii weeyaan yani waxaan holcaya waxa ka hooseeya waa alaab isku dhacday oo eeshcala oo kaale iska araga oo maasha allaha insha allah videoga bilow dhamaystir la soco haddaad rabtid inaad ogaatid yaa waxa holacan uu yahay holacan yaa gabadha walaasheen san idin sheegay Fawzima Axmed baa igu soo xujaysatay. Fawzima xabiibtii waad u jeedaa yaa inkastoo waxaan ku leeyahay cusbadii reerka xabad aanan ku yeerin cusbadii reerka dhaqaale burburis yaa yeenan guriga gubaad ugu tala gashay waa kaas hadee ka xaxaab aniga waxaan kula dhinac dhan baa ay gubanay maxkamadda waxaan ku leeyahay inaan kugu qaado okay waatan walaasheen Fawzima Axmed channelkeeda waa Fawzima Axmed asxaabay soo booqda channelkeeda hala soo booqdo insha allah alaabtan aad u jeedaan Fawzima ayaa igu soo xujaysatay. Fawzima waad u jeedaa holaci dhac inaan dhac ka soo siiyay wac yaa xujadaadii waataa anigana waxaan ku xujaysanayaa dhammaan asxaabta youtube-ka iyo qofkii daawada videogan yaa waa xujo waa inaad waxaan ku leeyahay xujada iska soo gudaan insha allah bal alaabtan waxyaabaha aan ka sameeyay iyo waxyaabaha ku hoos duugan yaa iyo holacan waxa uu yahay la socdo videoga bilow iyo dhamaystir insha allah idinkuna waad holcin doontaan bal guriguun ha iska holcinina guriga ha iska gubina yaa holacan aad arkaysaan wax dhibaato ma laha holacan waxaa ka hooseeya waa hilibka freshka waa hilib ari yaa maasha allah hilib ariga aad baan usoo meedhay aad baan usoo dhaqay cusbo iyo khal ayaan ku meedhay waad la socotaan xanuunadan ku jira dunida hilibkuna de hilib hortaada lagu qalay maahee waa hilib la taataabtay markaa bakteeriyada ka dil okay halkaas 3 qaado oo tuuna ayaan ku ritay tuuntana iyadana waa bakteeriyada dilaysa iyada laftirkeeda hilibkana way ii macaanaanaysaa insha allah waxaan ku darsanayaa hal qaado oo ah sinjibiil hal qaado oo sinjibiilana waan ku darsanayaa insha allah waad arkaysaan waxaan kaloon ku darayaa paprika waxaan ku darayaa filfil hadda 2 qaado oo filfil aan ku darayaa wada jeedaan filfisha badada amaaha waa filfisha jajaban ta guriga idinta le burburan waa jijibin kartaan waanad ku darsan kartaan insha allah halkaasna waa hal qaado oo paprika ah waxaan kaloon ku darayaa mint kaasina waa mint ama nacnaac qof kasta siduu yaqaano hal qaadaan ku darsanayaa iyadana okay waxaan kaloon ku darayaa waa black lemon yaa waa limonta la qalajiyo ee waxaan ku leeyahay waa limonta waa black limonta waa lindanaanta la qalajiyo maaha lindanaanta caadiga lindanaan la qalajiyo black lemon baa la yiraahdaa aad bay u macaan tahay maasha allah haddaad supermarketada ka heshaan waad arki doontaan macaankeeda tastigeeda insha allah waxaan kaloon ku darsanayaa hal qaado oo turmeric ama huruuduna waa heer sare iyaduna maasha allah cuntada aad bay u macaanaysaa waana antibacteria waxaan kaloon ku darsanayaa halkaa waxaan ku haystaa waa maji iyo soya sauce iyo maji la isku dara weeyaan waa dhanaan iyo macaan iyo tasti iyo maasha allah yaa soya sauce-kan keligiis maaha waxaa lagu daray maji markaa dhanaankiisa iyo macaankiisa lagama sheekeyn karo hilibka riyaha hilib riyood baan haystaa laakiin shilish oo baruur leh markaa saliid badan kuma darayo isagaa saliid dhali doona insha allah yaa 2 qaado iyo nus baan ku darsaday saliida ma rabo waxaan ku leeyahay meesha subag miiran iyo saliid miiran inay iga noqoto maadaama hilibku uu buuran yahay oo uu baruur leeyahay baruurtana ma rabo inaan ka jarjaro waayo macaan bay noqonaysaa baruurta macaanaysa hilibka halkaana waxaan ku daray hal qaado oo cusba intaas ka soko waxa ii harsan oo ku dari doona insha allah khal baan ku biyeynayaa waxaan kaloo haystaa caano yogurt
yaa khalku waa kaa aan isticmaalo. Khalkaasaan ku darayaa, waan ku biyeynayaa. Khalka qiyaas uma baahnid. yaa biyo badanna ha ka dhiganin, haddii kale hilibka biyo kaa noqonayaa. kolba in yar ku dar markaad aragtay inuu qaleel yahay, khalka ku kordhi insha allah. asxaabey, alaabtan had iyo jeer maaragtay hoteelaadka Iiraanta iyo hoteelaadka Turkiga markaad tagtaan, yaa had iyo jeer waxay caan ku yihiin mashwigaas. marka saa aad u dalbatid aad saa usoo fadhiisatid baa markuu kuu keeno ninka waiterka bul buu ka siinayaa. ma gaas buu ku shubaa, ma wax kaloo ku shubaa, allahu aclam. waad naxaysa markuu kugu maanta iigu horeysay kursiga waaban ka dhici gaarayba. midda kale maskaxdeeda waxaan iska dhaadhiciyo waxaan inaanay bislaynba saacadan la holcinayo. waxaan waa traditionalkooda, waa dhaqankooda, hala yaabina haddaad insha allah aragtaan. waxay ka dhigaan asafan bay ka dhigaan. marka dadka ay usoo dhigaan kaluun weyn oo waxaan ku leeyahay la foorneeyay baa lagu soo dhigayaa. markuu kugu soo dhigo bul baa laga siinayaa. yaa kana halkana waxaan ku haystaa caanihii yogodkan ku darsanayaa. hadda qaadadii hore xoogu buuxda, tan ma buuxinayo. qiyaasta waa 2 qaado. yogod haddaydan haysanin caanaha garoorka ama caanaha ciirta 3 qaado meelahaas ku darso. 2-3 malqacdood waad ku darsanaysaa caanaha ciirta. maasha allah, yogodka waa ciir la fariisiyey ama caano garoor oo la fariisiyey weeyaan, wax kale ma ahan. waxaan arkayaa inay xoogaa qalaal tahay. waxaan ka ilaaway oon ku darayaa xawaash buurbuur ama geedo shiidan oo bowdhara. yaa xawaashkan waan wada naqaanaa, hilibka udgoon buu ka dhigaa iyo macaan. xawaash buurbuurka qaybta kamsarada ii gelaysaa insha allah. yaa kamsaro ma rabo green iyo cagaar iyo waxaas ma rabo inuu waxaan ku leeyahay ka muuqdaan hilibkayga. hilibkan waxaad kalood ku darsan kartaan, aniga hilibkoo keliyaan foornaynayaa. baradho iyo carrot iyo basal, yaa waad kula foornayn kartaan. wax dhibaato ama laha, laakiin aniga hilibkaasaan ku darsanaya. waxaa kale ka fiican mataqaanaa qofkii raqay haysta, maasha allah raqayga. aniga raqayga halkan yaala sonkor buu leeyahay, waad ka wiswisaysaa. dukaamada soomaalida iibiya, laakiin dukaamada soomaalida waa la xiray. yaa xanuunada dartood, jiro dartood aagii soomaalida degaysay oo dhan way xiran tahay. markaa waan iska daayaba raqaygii. laakiin raqay haddaad haysataan sidan oo kale intaad biyo yar ku qastaan ku darsada. shacala weeyaa raqaygu maasha allah. waa kaas. just waxaad samaynaysaa, waad dhadhaminaysaa, cusbadaad u dhadhaminaysaa iyo dhanaanka. hadday okay tahay waa okay. haddaad u baahantahay inaad ku kordhisana waad ku kordhinaysaa. waad fahanteen. waxaan haystaa food colorka qaado yar baan ku daray, qaadada afkeeda hore bas. waad ujeedaan food colorka sababtaan ugu daraya waxa weeyaan huruud meeshaba jaale isla noqoto. waxaan rabaa xoogaa color inay yeelato, hilibkuna guduud qurux badan iyo noqdo maasha allah. wax dhibaato ah ma laha. just khudradan maaragtay spiceska meesha aan ku urursaday baan rabaa in colorka xoogaa ka yara bedelo, maadaama aan huruud ku daray. meeshaba jaale isla noqotay, huruud bay isla noqotay. yaa waan dhadhaminayaa. cusbada waa okay. dhanaankaaga hadduu okay yahay waa okay. markaa hilibka dhex gasho. haddaan okay ahayna xoogaa ku darso wax kaloo dhanaan. hilibka waa kaa waan wada dhex gelinayaa. hilibka baruur buu leeyahay, baruurtii badnayd waan ka wada guray, laakiin inta badan kamaan gurin. oo waxaan rabaa hilibka inay macaanayso. waad ujeedaan hilibka saasaan u marinayaa daba ilaa ka dacal. chicken baad ka dhigan kartaan, waxaad ka dhigan kartaan kaluun, yaa fish baad ka dhigan kartaan. qofka wuxuu doonayaa ayuu cusbada ku duugayaa. aniga hilib baryaha maan arag, marka saasaan hilibka u doortay maasha allah. waa kaa saasaan hilibka u wada marinayaa insha allah. alaab dhiindhiina oo kaale araga ayay noqonaysaa. markaan saa u wada mariyo waxaan sameynayaa baashan aan ku marmarinayaan kusoo celinayaa hilibkoo dhan. waxbaan afka kaga duubayaa insha allah. inta ovenkii waxaa diyaarsanaya 30 daqiiqo. waxaan rabaa inaan talaagada geliyo oo ay dhiindhiin ii noqoto. waayo talaagada markaad gelisid wixii oo dhan yaa dhanaankii alaabtii wixii aad ku darto oo dhan way isla khamiirayaan.
hilibka dhuuxii lafta ka gelaysa insha allah. xoogaa baan waa dhigayaa intaan diyaarsanaya abaaraha. Anigu waxaan rabaa 2 saacadood haddaad la dhigtid kaale arag buu noqonayaa, laakiin aniga time ma haysto. 30 daqiiqo bas ayaan rabaa inaan waxaan ku leeyahay aan la dhigo insha allah. saxaabay waad ka faa'iideysan doontaan macaanka waxaan ku leeyahay, waad yaabaysaan insha allah. sida soo baxdana wayna isla arki doonaa. waxaan sameynayaa hadda bacban afka kaga xirayaa si aan talaagada 30 daqiiqo u geliyo yaa oon usii diyaarsado. cusbadii baan qasanaya, wixii dusha kaga jiray cusbay ahayd, wixii ma garanaysaa laxaamada oo holca lagu qabanay cusbay ahayd. taa talaagadan gelinaya, cusbadiina waa tan, waaba 1 kiilo cusbaa. biyaan ku qasayaa, cusbada biyaha kaaga badanin, waxaa la rabaa yaa sidii inaad guri dhisay sidoo kale, inaad shamiito oo kale ka dhigtid ama sibidh maala talbiis yaa. waa tan waad qasayaa insha allah. xoogaa biyahana kama badinayo, gacanta markaan dareemo inay wixii ay isqabqabsanayso biyaha waan ka daynayaa insha allah. waa taa qaybta hoosaan dhisayaa hadda, waad ujeedaan saan u dhisayo. guriga qaybta sooseeska inta hoose lagama bilaabo yaa, waa kaas inta hoosaan ka bilaabaya. waxaad ujeedaan waa cusbo reerka kuma yeedho yaa. foosiima dhaqaale burbuus cusbada hoosta. cusbadan waxaan ku leeyahay sababta loo dhigayaa waxa weeyaan waa sidii maaragtay hilibka ciidda lagu dubo, maxaa la dhahaa yaa, saas oo kale. hilibkan wuxuu noqonayaa maasha allah. halkaasaan ka dareemayaa waayo cusbada saas shamiitada looga dhigay yaa, sidii wuxuu noqon doonaa insha allah wax kale oo kala yaaca oo la arag oo la maqal insha allah. waynu isla arki doonaa sida uu soo baxo. waa inaad isku sintid guriga yaa, si fiican waa inaad u sintid. lama rabo meel buuran iyo meel khafiifa iyo inay isku noqoto, waa inay meel wada siman noqoto ilaa hareeraha ilaa meel kasta insha allah. weli waan wadaa. waa kaas hadda waa dhag baan malaynayaa. waxaan soo qaadanayaa qaadan soo qaadanayaa oon yaa talbiista guriga markaan dhisayo waxoogaa maaragtay qolof dhaco soo talbiis dhac laguma siiyo, waaba sidii oo kale yaa. malqacadaas ama qaadadaasaan dhacdhac ku simayaa. waxaan rabaa inay ii sinaato si fiican yaa, uu seeska dhulka waxaan ku leeyahay uu sinaado. hadda waa dhag, waad ujeedaan. hilibkii baan talaagada kasoo bixinayaa. 1 2 waxaan diyaarsanayaa foil ama aluminium iyo warqadda maaragtay oo ovenka lagu geliyo. warqadaasna waan soo diyaarsanayaa insha allah. warqadda xoogaa baan goosanayaa yaro dheer yaa. waad ujeedaan xoogaa inta ileegta. waxaan sameynayaa qaybna banaankaan u bixinayaa, qaybna gudaha soo gelinayaa. saas aan sameeyay si la-eg baan dhinaca kalena ka sameynayaa. waa kaas waad ujeedaan. haddana waxaan sameynayaa oon diyaarsanayaa waa aluminiumka. waxaan rabaa hilibka inay ii qabato, waan rabo hilibka dheecaankiisa inuu cusbada aan dhulka dhigay ay gaarto, waayo hadday gaadho maaragtay way dhalaalaysaa cusbadu, markaa hilibkana ugu soo dusaysaa. ma raba inay
dhibic yar iga gaarto. markaa sidaa la arjigeed waxaan sameynayaa aluminium baan digsi uga dhigayaa. aluminium baan waxaan ku leeyahay si fiican yaa ugu xirayaa. hal dhibic waxaan ku leeyahay banaanka uma baxayso. dheecaankiisa iyo wixiisa iyo saliidiisa iyo subaga kasoo baxda isagun buu dib isugu noqonaysa. waad fahanteen baan malaynayaa. haddaa markaad hilibka xitaa caadi ahaan marka lama aragtay moofada la gelinayo foornada aluminium baa fiican in lagu duubo si aanu dheecaanka banaanka u bixbixin. waa kaas asxaabi, waad ujeedaan digsi oo kale aan uga dhigay. hadda qaybta kale labada geed koone ee kalena halkalaan soo goosanayaa oona waxaan ku leeyahay dhac ku siinayaa. marka aluminium weyn baan soo goostay, labada dhinac baan ka kala riday, waad ujeedaan. waa labada daraf aan kusoo laabi doono. xabadan kalena labadii daraf ee kale ayaan saarayaa insha allah, si gudaha hilibka aan waxaan ku leeyahay aanu banaanka iyo iiga soo bixbixin dheecaankiisa iyo waxaan ku leeyahay saliidiisa iyo wixiisoo dhan. waa taas dhag sidii digsi oo kale aan ka dhigay, waad ujeedaan. hadda waxaan sameynayaa hilibkii waan ku guranayaa. hadda waa ii diyaar digsigayga, hilibkaan ku guranayaa. hadda hilibkii waad ujeedaan asxaabey, hilibkii baan ku gurtay. hilibka inta waaweyn dhulkaan dhigayaa. inta waaweyn waxaan ku leeyahay horta hoosta dhigayaa. inkastoo hilibkayga iyo bahalkan aan ofanka ku gelinayo way isla egyihiin, waad ujeedaan. intii kasoo hadhayna saasaan ugu dul daadinayaa, wax laga tegaya male. sidaa markaan iri kabacdi waxaan sameynaya, waxaan haystaa liin dhanaanta maaragtay miiran ee diyaarka ee dhalooyinka ku jirta ee supermarketada lagu iibiyo. liin dhanaantaasaan ku tuujinaya. taa haddana haysan liin dhanaan caadiya intaad kala gursatid ku tuuji. sababta aan ugu dambeysiyay liin dhanaanta waxa weeyaan liin dhanaanta marka ay dabka aragto yaa maasha allah sidii waxay usoo ureysaa urteeda maaragtay lagama sheekeyn karo. horta khamiir yaa khamiir kaale iska arag weeyaan. saalaarjiga liin dhanaantaasaan haystaa, waa pure lemon. qaar baa biyale, qaarba nooc waa ka wasada kale quality fiican yihiin. aniga tanaan isticmaalo waan idin tusayaa. xitaa cuntada markaan ku darsado waan ku darsadaa marka intaan ka waasado liinta intaan kala jeexayo. waa taa waa liin dhanaanta greenka ah weeyaan, waliba maaha liin dhanaanta oo jaalaha ah oo la miiray. waa taas waa pure say u egtahay, waad ujeedaan. ilaa 3 qaado meelahaas baan rabaa aan ku darsanayaa. hareeraha, geesaha, meelahaas oo dhan baan ka gaarsiinayaa. kaale arag bes, hadda wax kale uma geynayo. hilibka si fiican baan aluminiumta ugu bashqadaynayaa. ma rabo hal meel inuu ka neefsado. waad fahanteen baan malaynaysaa. markii horaan xoogaa darafyada samaystay, saasaan ugu laabay. yaa kan kalena labada hareeroodna waan saasaan ugu laabayaa, waad ujeedaan. kaana saasaan ugu laabay sida buug la jaldiyeynayo oo kale. kaana waa kaa. kii u dambeeyeyna dhac baan ku siiyey, waad ujeedaan. yaa wax allaali wax gelaya iyo wax kale ma jirto. jik baan kaga dhigay. dheecaankiisa iyo waxaan ku leeyahay saliidiisa iyo subagiisa iyo wixiisoo dhan isagun baa waxaan ku leeyahay isku liinbaxaya, isku liin noqonaya. warqadii intii hoose labada darafta ayagana ii dhaadheeraasaan idinku sheegay hore, saasaan isugu duubayaa insha allah. kuma daynayo taas, warqad kalaan soo goosanaya oon dusha ka saaraya.
asxaabe hadda saasuu diyaar ku yahay, laakiin weli diyaar maaha. warqad kalan rabaa dusha inaan ka saaro. waa kaas adiga kolba sidii waxaan kula inkastaan warqadda hadda isku yareeyay marraba warqad weyn inaan qaato intaa yar waxaan rabaa intaa yar sabab bas inay iigu celiso cusbada hilibka gebigiisa inaan saan u qaado ma jeedaan maxaa yeelay waa aluminiumka aan ku xidhay wax kasoo daadanaya wax kasoo baxaya malaha cusbadana sideediba ay tahay waad ujeedaan. yaa farsamada aday ku taalaa saad u farsamaysanaysid. وعدك هذا تلبيستي يا قولي سقفكي تلبيستي وهذا أنا سميناه عصبدي واتن كيلو عصبدها أنتي إيجا دينايد بنقدر سنة هذانا وتا إجمع فينا كيلو كلاقية على إن شاء الله أن نسك قدر صندونا يا كدبنا فورنا دانتوس وقلينا يا دبكة فورنا دو حكوتش ريال بس عدودي برد كل بهيد كهذا سيد وياه أنا قلنا في كان سواق قطينا في يربوها أو بيبي marka dad badan uma qaadanayaba 2 saac iyo badh ayuu qaadanayaa 2 saacadood waxaan ku daayay 200 oo hiidka nuska saacadana badhkana waxaan ka dhigay 180 waan ka yar khafiifiyay marka 2 saacadood iyo bar markuu ku jiray waan ka damiyay ilaa intuu qaboobay meesha ku yara daayay ovenkan ku daayay ovenka ku daa ilaa inta waxaan kula ovenku qaboobay xoogaa yar ilaa 10 minute oo kale كبعد كبحي مركز كبحي سيد ها واضح العنيسة هولع أصحابي قصد معها هذا ربطان قول بينات كوسا ما يستان وما بهندين إلى الحلو إنسان هولع just وا challenge يحجل يسكو حجيستي يا مركز كبحي سان عادو ديسان 8 دقيقة مركز كدميسان ماركتي أوفنكا مركز 8 دقيقة ودينيسان هيدك أوفنكا هاكو يرجيرو كبعد banaanka soo dhiga markuu qaboobo yaa waxay ku noqonaysaa dhagax sidii shamiito oo kale mididaada iyo dubahaaga soo qaadahe oo iska jibinin weelka aad ku gelinaysid ovenka dhac yaa saas ma si kale ma fuqayso hadda waa taas oo iga yaraatay seeskii oo hareerahan dhisay inta dhexda ay haray yaa way iga yartay cusbo kalan kale kiilo kalan furayaa waxaan ku leeyahay asxaabay marka aad ka furtaan cusbada yaa hadaad u baahantiin inaad mar kale samaysaan weel ku urursada yaa tibta iyo mooyaha u qaata dhac budada sideeda caadi ahayd ka dhiga oo weel ku shubta haddana maalin kale marka aad sameynaysaan qasta aad fahanteen waa diyaar hadda cusbada intii u dambeysaan ku daray hadda gacantan ku simayaa saan idin sheegay ovenkan gelinayaa ovenka hadda wuu ii kulul yahay 200 weeyaan hiidkiisa waxaan kaloo isagana aan diyaarsaday khudrad baan rabaa inaan ku daro baradho iyo xoogaa basal iyo carrot ayaa ii diyaarsan bariisna insha Allah waan karsan doonaa bariis yar oo khafiif ah oo wax badan lahayn oo lagu cuni doono insha Allah iyo salarkiisa iyo casiirkiisa ma sha Allah qadafuule weeyaan waa kaas halkaasna waan talbiis laxamad yaa waa la sibdiyay soo ma jeedaan hadda waa diyaar ovenkan gelinayaa insha Allah ovenka markaan ka soo bixiyo maxaa ku xiga ma taqaanaa hala isxulciyo sanitizer marka ovenka uu ka soo baxo 2 saacadood iyo badh sanitizerkii waa gacan gala hadda qaali waaba noqday sanitizerka bif lagu siinay waa kan hadda wuu ka soo baxay sanitizer baan ku shubay waa ka bul Fawziya waad iga haysaaban malaynaya Fawzima waad u jeedaan kan waa challenge-gii yaa sanitizer baad dhac ku siinaysaa kadibna waxaan ku leeyahay dabkaad ku qabanaysaa bul waa kaas asaa iska baqtiinaya asxaabiga ka warwarina dabka meesha ka baxaya damage ma gaarsiinayo weelkan aad ku gelinaysid weelkan uu ku jiro muujeeda damage ma gaarsiinayo intan cusbada intan saroon baa iska holcaysa daqiiqad wax ka yaran wuu iska dameeyaa isaga isdaminaya insha Allah hadda intaas markuu damo aan aragnahay waxa gudaha ku jira waynu furaynaa waynu eegaynaa waa kaas holca waad u jeedaan intaas weeyaan inta challenge-ga yaa reer youtuber aad baan idinku xujeestay
qof kastoo videoyga daawada yaa xujo kugu tahay waa inaad waxaan kule xujada iska soo guddo. laakiin aniga 4 gabdhood asxaabtayda baan rabaa inaan baalaha ka rifo. yaa 4 gabdhood aan soo magacaabi doono asxaabe. yaa waxay isla hayaan hala arko ila arka tii kasoo bixi weydana waad arki doontaan. yaa tii kasoo bixi weyda waa la arki doonaa xujadan. 4 gabdhood ha isdiyaariyaan insha allah. asxaabe waa taas waxaan markuu ofanka kasoo baxo aad buu adeegay markaa waa inaad u qaadato midi iyo yaa dube xoogna ha u daloolinayaan hilibka kaa gaarin. mididu hilibka gaaraysa dad xoog ugu dhufatid qiyaastii farsamo wax kasta farsama lagu wadaa. saan idiin sheegay cusbada waa taas weel baad ku shuban kartaa ku urursan kartaa inta hoose nadiifta. kabacdi maxaad samaynaysaa dib baad u tumaysaa waxay noqonaysaa sideedii. maalinta labaad ama dherigaad ku darsan kartaa ama maalinta labaad baad waxaan kule ku samayn kartaa. yaa aniga horta waxaan kule ismanihi maalin kala sameeya. yaa iska daadinaya aniga uma baahni. yaa ismanihi samee mar kale insha allah mar kale. okay waa laga yaabaa markay marti timaado inaan sameeyo laakiin yaa haddii xaaba laysiibiyey yaa la isku teginba yaa laysa salaamin yaa la isdhunkan yaa la isbooqanin. marka maanaha martiba rabaa soo booqata martidiiba laga cararayaaba. okay hadda waan ka jajabinayaa waad ujeedaan. bacdi warqadii waad arkaysaan warqadii say u googooday laakiin cusbadaasi ma gaaraysa hilibkayga maxaa yeelay aluminium baa daba ilaa ka dacal ku duuban wax ay gaaraysa male. yaa saxan baan soo qaadanayaa nadiifa oo hilibkan meesha kasoo dhex saaranayaa. markaasaan waxaan ku leeyahay saxanka nadiifta ku guranayaa insha allah. okay saxankaasan soo qaatay asxaabey. waxaan rabaa cusbada inaan ka wareego bahalkan meeshan wada cusbada. yaa yaanu hilibka cusbo miiran iga noqone. maadaama aluminium aan si fiican ugu duubay wax dhiba ha ka warwarina. dhibic yaroo saliida ma gaarayso cusbadii xagga hoose mana u soo gudbayso. warqadii markii hore aan ku duubay eega say u googooday waad ujeedaan warqadii. yaa xoogaa warqadii u hooseysa hoosta aan dhigay markii horeba iyo hasqabsaday hilibka aluminiumtiisii. taas eeg aluminiumtiisay saafi u tahay xitaa warqada ma gaarin waxay dhibic yaroo saliida. yaa cusbada inta yara dusha ka gaargaadhana waad ka yara iska yara daadin. asxaabey meeshan noobay nadiifinayaa waan soo noqonaynaa. waa kan xabiibaatii hilibka noo furayaa hadda siduu noqday. yaa ama meesha igu caabeyn doonaa hilib qayriinaada iga soo bixi doona ama bahal dhiindhiin oo kaale iska araga ayaa kasoo bixi. yaa sid aan furee horta udgoonkiisa xaafadaha shanaad baa laga soo uriyey. yaa waaw dheecaankiisii wuu liqay saliidiisii wuu liqay maasha allah. siduu soo baxay waad ujeedaan 2 saacadood iyo bar buu ku jiray. yaa qoyaan male malaha saliid male waxba male maasha allah waad ujeedaan. saan doonaya waa taa weliba hilibka aniga aan samaysanay bahal wada baruuru ahaa. baruurtii meel ay martayba lama yaqaano way shiilantay. yaa xoogaa aan laftan noo soo qaadayaa waxaan eegayaa bal sida uu u jilcay iyo sida uu yahay aad la aragtaan idinkana insha allah. asxaabay waad ka heli doontaan udgoonka maasha allah. yaa
udgoonka baan ku yiri xaafadaha shanaad baa laga soo uriyay iyadoo talbiisan oo cusbada waxaan ku leeyahay kor iyo hoos ay uga talbiisan tahay taa haddana udgoonkiisa waa laga baxay waad ila arki doontaan haddaad tijaabisaan insha allah waa kaas qaybtaasaan eegaynaa siduu soo baxo inuu jilcay inuu dhagax yahay inuu adag yahay ila arka hee waad ujeedaan asxaabay suu kala faruhu kala raacayaa faraha yaa anaa inoo tijaabinayo waad ujeedaan anaa idin bismillah anaanka macaanka maasha allah hilibkan ka guranayaa meesha hilibka waan ka guranayaa waxaa ii diyaarsan khudrad baradho iyo carrot iyo basal iyo sabiib iyo adduun aan isku diyaarsaday baa ii diyaara alaabtan baastaad ku cuni kartaa bariis baad ku cuni kartaa wax allaali waxaad doontaad ku cuni kartaa sidiisaad ku cuni kartaa wax ay diidaysa male casuumadaha yaa naftaada casuum hadda marti imaka lama rabee martida ka rawraa la dhahaye caruurtaada iyo adiga iyo naftaada iyo odaygaaga iyo waxaan ku leeyahay wixii kuu dhowdhow faamigaaga is casuuma yaa martiyaa la isku iman baaba la yiriye martida waa laga ordayaaye yaa maadaama lockdown aan ahayn guryaha fadhino waa in las nafaqeeyo haddaad caloosha buuxisid xanuunkana waxaan ku leeyahay kaa cararayaa baa la dhahay waad arkaysaan xabiibaati bariiskaas yare khatarta ah baan samaystay aan shaqo badan lahayn bardhadii iyo khudradii yareedaan diyaarsadana waa aniga dhinaca ka saaray casiirkayga yar maasha allah waa qadafuul ah yaa aan idinku soo dhaweeya waa kaas khudraddaa yar laftirkooda waxaan ku leeyahay ofankan dhacdhac ku yara siiyey intii aan holholcinayay yaa waad ujeedaan maasha allah waad ka heli doontaan insha allah tijaabiya hilibka udgoonkiisa maasha allah jileeca yaa baruur iyo wax aad iska qaadaysa male weligooda baruurna wuu ahaa baruurtii way shiilantahay kaale iska arag yaa maasha allah waad tijaabin doontaan aad baad u mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga haddana ma aragta afar gabdhood asxaabteyda kamid a rabaa baalaha inaan ka rifo halkanaan channelkooda soo dhigayaa asxaabey soo booqda asxaabteydan waxaan ku leeyahay channeladoodana halkan aan idiin soo dhigi doonaa insha allah asxaabteydan qaaliga gabdhaha hala soo booqdo yaa 40 gabdhoodna hadday kasoo bixi waayaan baalaha igala rifa way ku qasban yihiin inay kasoo baxaan no excuse waan idiin sheegay marmarsiya ma jirto gabdho soo shaqaysta waxaa kaloon ku xujeysanayaa dhammaan gabdhaha youtube-ka iyo gabadhii daawato videogayganba qofkii daawado waa kugu xujo yaa dhacdhac kasoo sii xujada kasoo baxa yaa xujo idinku yahay xujada kasoo baxa alaabtaa yar digaag iyo kaluun iyo waxaad doontaan baad ka dhigi kartaa hilib qof kasta